dhawaanay ka dhacday shaqaaqo sababtay dhimasho hal qof iyo hal qof oo kale oo isaguna ku dhaawacmay kadib markii wasiirka amuraha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo ay ku jiraan barasaabada gobolka Saraar iyo Togdheer ay deegaankaasi gaareen shaqaaqadan ayaa waxa ay dhexmartay laba beelood oo deegaankaasi wada degaa kadib markii ay isku qabteen qoditaanka baraago deegaankaasi ku yaala wasiirka wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland ayaa kadib markii ay halkaasi tageen waxay ka howlgaleen sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen deegaamadaasi xaaladiisii nabadgelyo waxaana guud ahaanba halkaasi lagu dhaariyay odayaashii iyo cuqaashii labadii beelood ee shaqaaqadu dhexmartay iyagoo si rasmi ah u qaatayna xabad joojin wasiirkan wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Saraar oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in si rasmi ah halkaasi uga hirgeliyeen xabad joojin isla markaana ay waxyaabaha yaryar ee hadhayna ay sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhamayn doonaan waana kuwan iyagoo ka hadlaya deegaanka shaqaaqadu ka dhacday ee Qararo ee gobolka Saraar alxamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala rasuulillah anigoo ku hadlaya magaca gobolka Saraar gudoomiyaha gobolka Saraar ahna waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdiga uu watay iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer mayorka Togdheer iyo mayorka Caynaba iyo taliyaha qaybta biliiska gobolka Saraar iyo taliyaha ciidanka firmadka iyo oday dhaqameedyada halkan isku yimid iyo inta isku soo xilqaantay nabadeynta shaqaaqa yar runtii oo ka dhacday gobolka Saraar meel kamid ah oo Qararo leeyahay oo runtii dad fara badan iyo madax dhaqameed badan ay isku yimaadeen sidii loo soo afjari lahaa wasiirkuna run ahaantii sidoo isku soo xilqaamay markii aan arrinta gaarsiinay inuu markiiba habeen barkii inuu runtii ka soo baxay waana markii labaad run ahaantii waqti xun u Hargeysa ka soo baxo habeenkii gidina dariiqa ku soo jiray deedna aroorimadii uu soo gaaray anagoo arrintii gacanta ku hayna dejinayna runtii nabadgelyadana si fiican uga shaqeynay ma haddaana iska leeyahay ciidamada biliiska ciidanka militariga ee qaranka run ahaantii oo iyaguna waajib xoog leh arrinta ka qaato ilaa iyaguna maanta meesha jooga oo iyaguna joogaan aad baad mahadsantiin baan leeyahay waxa sidii ay wuxuu dhamaadeen iyo faahfaahinteeda iyo nabadu sida ay u xidhantay waxa sheegi doona wasiirka arrimaha gudaha mahadnaqaya bulshada halkan aan ugu nimid haddii salaadiin iyo haddii dadka deegaanka iyo haddii dadkii Hargeysa iyo Caynaba iyo meelba ka soo gurmaday marka horena waxaan jeclaan keenan uga tacsiiyo qoyskii iyo muxuu ahay cidii uu ka baxay marxuumkaana ku dhintay wixii dhacay Ilaahay waxay u saacidayeen uga bariyaa talabaad runtii waxaan ka mahad celinayaa ciidamada qaranka iyo booliiska oo runtii qayb wax ka qaatay waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa kale gudoomiyaha gobolka Saraar gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo madaxda ciidamada qaranka iyo booliiska ee halkan igu wehelinayay waftiga odayaashii ka soo qayb galay arrinta tan waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta wax badan dhacay jirin meedkiina imka la isla gartay in la aaso reerihiina hawshu wixii ka dambeeyay sidii loogu kala samir lahaa loo ballamay barito sidaan aan jecelahay insha Allah inay khaatimo wanaagsan soo khaatimayso arrintaas way dadkan waa dad sida la sheegay inay isku deegaan oo wada degan meesha weeye marka Ilaahay wuxuu bariyaa in Ilaahay nabadgelyada uu adkeeyo oo hay nabadoodana ay adkeystaan si aad iyo aad odayaashii labadana ka soo qayb galay sidii ay u fududeeyeen iyo sidii noogu soo dhaweeyeen walba wax laga dhaariyay 15 qof inay nabad ilaaliyaan arrintaana wixii ka dambeeyay guddi baan u saarnay 35 nin oo iyagu wada kala gura labada beelood wixii isugu dhiman insha Allah waxaan rajaynayaa si khayr leh ku dhamaato waa Cabdi Sattar